kusoo dhawaada Journey to Fame qaybteedii toddobaad wadadii caanimada ee qodxaha lahayd oo aan muddo 7 cisho ka maqnaa sababaha aan uga maqnaa waxa kamid ah in aan dib ugu soo celino YouTube-ka heeskii barbar oo tuuboni oo ah heeskii barbar oo mar labaad music hor loo tumay heeskii barbar oo cadiriisa wata aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa dhammaan taageerahayga fanskayga meel kastoo aad kala joogtaan waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin gaar ahaan waxaan u mahad celinayaa reer commenti waan idin la socdaa reer commenti waan idin la socdaa war commentiga waa akhriyaa war nin odaya oo waxaan ahay commentiga aad u akhriya because of reer commenti waxaan ogahay inay outside the box taagan yihiin gameka ayagu ay ciyaareen laakiin wax walba ay la socdaan saasay wax walba u indheeyaan reer commentiyo anigu commentiga waan akhriyaa waliba commentiyada qaar waxa jira aan soo qaadan doono commentiyada qaar waxa jira aan soo qaadan doono oo aad ii soo jiitay halkan waxaan uga mahad celinayaa gabar Soomaaliyeed oo walaashay ah oo commenti aan aad uga helay ii soo qortay waxa la yiraahdaa gabadhaas Helsan Ahmed baa la yiraahdaa oo kiyalaha wasiibaya gabadhaas waxaan leeyahay walaal waa mahadsan tahay waxay igu tiri hays dhiibin waligaa hays dhiibin bay igu tiri waligaa iyo allaha hays dhiibin bay igu tiri ereygaas waa erey weyn hays dhiibin adiga idaawanaya oo commentigayga akhrinaya oo YouTube-kayga soo booqanaya oo ila socda oo walaalnimada ii garab taagan oo support garaynayana waxaan ku leeyahay waligaa is dhiibin waligaa iyo allaha hays dhiibin qofka bini aadanka inuu is dhiibo ma habboona oo yaani nolosha inuu iska dhiibo inuu daruufta isku dhiibo inuu xaaladaha adag isku dhiibo inuu wax walba oo kula soo gudboonaada hays dhiibin waligaa mahadsanid walaashay mahadsanid baan ku leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waa tahay halka hadaan uga gudbo dhambaalkii quruxda badnaa ee walaashay Helsan Ahmed ay hawada ii soo marisay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo walaalahayga Soomaaliyeed ee YouTube-kayga 100 kun gaarsiiyay reer commenti waxaan leeyahay aad iyo aad baa mahadsantihiin YouTube-kaygu wuxuu gaaray 100 kun iyo waliba hodhodho 200 kunna waxaan ku galeynaa hadii forfait degdeg baan ku galeynaa waxaan leeyahay waa mahadsantihiin qofkan bini aadanka u mahad celin ilaahay abuurtayna uma mahad celiyo mahad balaaran ilaahay ka sukow idinkaan idin hayaa oo idin mahad celinaya waxaan kale u mahad celinayaa the one and only legend walaalkay Afrax mar walba Afrax waa u mahad celiyaa Afrax kama tagaba because of meelan uga tago ma jirto Afrax waa legend waa nasab kaamila aan qalbi wanaagsan waa nin dad badan oo anigoo kalaana ay ku faanaan saan ugu faano Afrax dad badan oo anigoo kalaana saasoo kale ugu faanaan ilaahay Afrax uu hanoo ka daayo heeskii barbar horta waa cadaraad ka dhigteen TikTok-ga waxaan daawaday ummadda saa isku wada tuuraysa TikTok-ga waxaan soo qaadanayaa fiidiyoyadii ugu cajaa'ibsanaa TikTok-ga aan arkay de la soo dhigdhigayay oo de khatar tahay laandheerayaasha ahaa rag badan baa challenge ka soo sameeyay dad caana challenge soo sameeyay baabajay uu ku jiro iyo gabar cadaana waxa weeye dad badan oo caana baa waxay soo sameeyeen challenge-gii dad badan oo waxa weeye reer commentiga challenge-ga soo sameeyeen challenge-ga heeskan waxaan rabaa reer commentiyo dhamaantiin horta inaa isturtaan adduunka heeskan inaa gaarsiisaan adduunka idinka wax gaarsiin kara soo moogidin awoodiina adduunka wax way gaarsiin kartaa waxaan la hadlayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa heeskan barbar inaad ka dhigtaan worldwide hees caalami inaad ka dhigtaan idinkaana ka dhigi kara gaarsiin kara adduunka dhamaantiin waxaan rabaa inaad isturtaan aniga oo Omar walaalkiina waxaan amar idinku siiyay reer commenti haddaanu iswadano oo aan weligan iswadan doono in aad gidigeen dhinac inoo tuurtaan heeskii barbar
waagi uu soo baxay ma jirin waxa la yiraahdo TikTok ma jirin waxaa jiray Snapchat iyo Facebook wada ogeedeen wacdaraha ka dhigteen Facebook iyo Snapchat adduunka oo dhan baad dhinac kale u tuurteen Soomaali kaliya ku ekeyd hadda waxaan rabaa inay international noqoto heeskan waxaan rabaa in aad ka dhigtaan international waana ka dhigaysaan boqolkiiba boqol waxaan ku kalsoonahay oo aan aaminsanahay heeskan inaad international ka dhigaysaan waxa ii muuqda heeskan oo aad Soomaali Maxamedey ka dhigteen hees international ah oo Hollywoodka la jaan qaaday dad badan oo halkan waxaan rabaa inaan ku soo xuso heeskii barbar challenge-geeda sameeyay ano jiifa qurqu jacayl ku xiray sarsan intuu galiyay dardar ayuu ituuray barban waxaan kaloo halkan rabaa inaan uga mahad celiyo walaalkii Saki bin Xaaji oo kamid ah dadka sida dadban ila shaqeeyay YouTube-kaygu inuu 100 kun gaaro sida dadban dadkayga la shaqeeyay dushan kala socdaa qof kasta oo aniga inta in la igi geesta wallahi inaan libintiisa xaqirin qarin Saki bin Xaaji waxaan ku leeyahay walaalkayow mahadsanid ma la shakara naas la shakara Allah ilaahay uma mahad celiyo qofkan dadka u mahad celin anigu waxaan ku jiraa dadka aan dadka libintooda xaqirin qof kasta oo inta in la eg oo wanaaga ii geesta wallahi inaan qarin dad waxaa jira saaxiibaday ah oo social media ana ka sheegin oo aan jeclayn magac ahaan iyo muuq ahaan inay social media ka muuqdaan oo si dadban ila shaqeeyay ayagana waxaan leeyahay mahadsanidin halka markii laga soo tago ma haddaas ballaaran ee aan dadkayga u diray markii laga soo tago dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego fikirkiina haddii aad itiraahdaan for example war Omaro arrinka noocaas ama aad ka soo hadashid oo arrinkaas yahay arrin wanaagsan waa ka soo hadlaya anigu wax aan wanaag ku saabsanayn wax aan horumar ku saabsanayn wax aan libinta dadka guusha dadka in la sheego ku saabsanayn iguma imaanaysaan kama shaqayn doono in aan dadka dhibaatadooda irsaaqad ka raadiyo halka intaan soo fariisto aan iraahdo qof dhibaatadiis xataa inaan ka sheekeeyo no waxaan ka sheekayn doonaa guul waxaan ka sheekayn doonaa wanaag waxaan ka sheekayn doonaa khayr barako horumar wax dhisid in wax la dhiso in wax la dhiso wax la hormariyo guusha dadka laga sheekeeyo halkan waxaan uga baaqayaa oo aan baaq u dirayaa dadka hal doorada ee Soomaaliyeed waa idinku soo maqana inaan libintiina sheego baan ku soo maqana xumaantiina kuma soo maqni dib u dhiciinana kuma soo maqni waxaan ku soo maqanahay inaan libintiina sheego in aan qof kasta oo Soomaaliyeed oo wanaag lagu bartay inaan buunbuuniyo waxaa jira wiil dhalinyaro oo ka qayb galaya fashion show ka dhacaya Nairobi wiilkaas waxaan rajaynayaa inuu guuleystay shalay wuxuu igu yimid qolkayga nin la yiraahdo Ajiib oo aan walaalanahay oo aan dadka aan ku walaalownay social media han kamid ah markuu Ajiib yimid wuxuu igu yiri wiilkan waxa ka horeeya nin Nigerian ah Afrikaan tira badan baa la tartamaya wuxuu ka horeeyaa buu yiri 100 qof qolka markuu igu yimid 100 qof baa wiilkaas laga horeeyay ka bacdi wax yar iyadoo laga soo wareegin waxa dhacday wiilkii inuu ka hormaro 1000 iyo abab 1000 iyo dhadho inuu ka hormaro wiilkaas guul baan u rajaynayaa warkiisa ma hayo inuu guuleystay in kale laakiin ila soo wadaaga reer comment idinka ila shaqeeya wiilkaas fashion show buu ka qayb galay waa wiil Soomaali u qaabilsan fashionka wiilkaas waan idin wadaagayaa xogtiisa wixii ka soo baxa inuu guuleystay iyo in laga guuleystay iyo meeshuu gaarayba waan idin soo wadaagi doonaa qof kasta oo Soomaaliyeed oo horumar iyo wanaag iyo dadnimo iyo horu socod la yimaadana libintiisa ma xaqiri doono mana qarin doono halkaan aan ka sheegi doonaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo igu xiran YouTube-kayga ku xiran waxaan u sheegayaa qofkii aniga fikir ila wadaaga aad u wanaagsan uu fikirkaasi yahay fikir miro dhal leh oo taabasho leh oo wax ku oola inaan asna ka soo hadli doono fikirkiisaas oo aan dadka la soo wadaagi doono barnaamijyo tira badan oo aanan hadda ka hor dhacayn baa soo socda oo khayra waxaan idin kula wadaagi doonaa
qaybta 8aad ee Journey to Fame wadadii caanimada ee qodxaha lahayd. waxaan kaloo rabaa inaan halkan idinkaga caddeeyo oo idin sheego fanaaniinta Soomaaliyeed haddii uu jiro fanaan dulman oo dhibaataysan oo heesihiisa lagu dhibaateeyey waxba aan ka samayn fanka iskaga jira oo doonaya in uu fanka horumar ka gaaro, waxaan ahay ninkii ku caawin lahaa. waxaan ahay ninkii ku caawin lahaa oo aan been ahayn. qodobkaa meel ku qoro fanaan Soomaaliyeed haddaad tahay oo xaaladdu juq kugu tahay oo fanka aad ku dhibaataysan tahay, ila soo xiriir. iimayladayda waa la wada hayaa, dadkoo dhan way garanayaan, waa caan. dad badanoo waxaa jira iimaylada igala soo xiriira, halkaasaad igala soo xiriiri kartaan. waxaa weeye waa la gelayaa hawshiina. niyadda khayr ha loo sheego Soomaaliyey. ilaahay bogiina burcad ha isku mariyo. ilaahay gobonnimada iyo Soomaalinimada ha idin waafajiyo. qabyaaladdu waxay tartamale ilaahay qalbigiina ha ka masaxo. waa walaalkiin Omar oo idin leh biidnillaahi kariim. wax walba waxay ku dhacaan qadarta eebe. anigu waxaan ahay nin la saaxiiba qadar dhaca, qadarta aaminsan, ilaahay aaminsan, Soomaalinimada aaminsan, shanta Soomaaliyeed iyo calanka buluuga aaminsan. intaa wax ka hooseeya aad igu imaanaysaan aan ka ahayn ehelkayga, faamiliga aan ka dhashay ma jiraan, mana jiri doonaan. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.